ciidan baan qoray ciidanka aan qoray qofna kuma aflagaadaynaayo qofna ima diidi karo waxa waaye meesha waxaa yimid oo aan ciidanka ka qoraayay dad ama ila ama gacan maqan tahay ama lagu maqan tahay oo naafa ah yaa yimid waxaan u sheegay dadka noocaana inaan ciidan loo qori karin wax kale ha jirto laakiin ciidan looma qori karin intaa ma ila garan waa gartay laakiin dadka qaar waxay sheegayaan inay dadkaasi ahaayeen dad u naafoobay qaranka iyagoo hawshiisa wada dhegeysa hadda ninkii qaranka u naafoobay meeshii ku naafoobay buu joogaa hadda shaqa raadis ma aha intaa ma garatay waa gartay ciidanka ninkii u naafoobay oo ciidan ahaa ama military ahaa ama asluud ahaa ama boliis ahaa waxay dhintay waa dhinteen wixii nool meeshii ay ku naafoobeenay ciidan ka yihiin ciidanka asiga ahaana shaqada lagama eryin wax jiro weeye warka aan kuu sheegaayo dadkaanu dad sicib a weeye ama ilbuulaayo ama lug oo meeshana yimid oo rabo inay ciidan qabtaan anna waxaan u sheegay qaabka noocaana ciidan looma qori karo taa waan u sheegay tan kale waxa waaye qofaan anigi ku aflagaadeeyo aan eri maxay ahayd adiga il baad la-ada mid baad la-ad hebel baa tahay laguma qoraayo aan ku erina ma jirto sida diistaas waaye nidaamka jira waxaa waaye nin illa ama lugla ama gacan la lama qoraayo sida aan u hadlay waasaan ciidana kama bixi karo dadka noocaasa wuxuu ka bixi karaa hay-ado kale hadduu yani aqoon wuxuu aqoon u leeyahay lagu qoro hay-ado kale yuu macnaha yani shaqo laga siin karaa ma laga yaabaa idinku inaad ka gaabiseen inaad markii aad shaacinayseen shaqadan aad dadka u sheegtaan shuruudaha lagu xidhayo shuruudaha waa sheegnay goortii wax laga qoraayo aan dhignay waan sheegnay ciidankani sidiisaba qoritaankiisa lama baafiyo ciidan haddaad aragta la qoraayo waa sir weeye sir dawladeed waaye dawlada ciidanay qoranayso intaas saasaan qoranayo wakti hebel sida badan ma tiraahdo ciidanku waa la sheegay goortaas in ciidan lagu qoraayo waana la qoray qaab baana lagu keenay qaabaan badan baa lagu keenay marka mana la rabo qof naafa a lagama rabo oo ciidan ma noqonayo qof nooc kastaba ha ahaado marka dadka waxaas warwareejinaya waa dadkii jiri jiray saan qiyaasaayo oo ma garanaysaa yani maxay ahayse wanaagdiidka ayaan u fahmayaa beensheega ahaan u fahmayaa qodobada kale soo hadal qaatay waxaa kamid a dadka da-dooda waxaa tihi qofkii da-diisu weyn tahay ciidan lama qorayo ninkii aada u yaro da- yar oo da-da in askari loo qoro yani nidaamka adduunka diidaayo sharciga ka yaala ninkii yar ciidan uma qorayno oo qoritaanka askarta yani qadab diidaayaa jiri da-da yar kii weyna waayeel ana ma qoranayno maxaa la dhahaaye oo waayeelana ma qorayno ninkii hadda eryaan ana ciidan looma qoray ciidanka soomaaliya sharcigiisu muxuu dhigayaa qofku da-da markuu imisa sano jiro ayuu howlgab noqon karaa nidaamkaas waa nidaam sida waa nidaam dawladeed nidaam jiro adduunyada ku jira weeye soomaaliyana keedana ayaduu khaas u yahay oo ma garanaysa ayuu u yaalaa hadda waa 20 jir iyo 50 jir midna kuma dhahayo asbaabteeda waa saas waa tahay laakiin dadka qaar waxay leeyihiin taliyaha laftiisu waa qof da- weyn oo waayeela marka muu isagu ciidanka u banaya dhalinyarada anigu da- baan ahay waa run laakiin dawladayda shuqul ku leh xilligii shaqada yani da-baa tahay ka fariiso la yidhaahna waa ka fariisanaya doorna uma qabo ninna ma dacweyn doono ninna kama been sheegaayo hadda ma kuu sheegaya da-daan